Dunkameyn iyagoo ka warramay ahmiyadda maalintan ay leedahay sidoo kale ugu baaqay bulshada in la ilaaliyo nadaafadda. horumarka horreyn nadaafaddu ma jiro dhammaan shacabka waxa wada arkaysan soo guray inta iskaroodina inta soo jeer bay qaaday waka xashiishkii wali waan wadnaa fari kama qodna marka waxaan u baaqayaa dadka ku nool Jamhuuriyadda Soomaaliland inay iska wax u qabso ku shaqeeyaan xashiishka Quraan ardayda reer Soomaaliland waxaan leeyahay bareefadiyo dawliba in u soo baxa dalka bariga hore waxa lagu nadiifin jiray iska wax u qabso waxa weeyaan tiiba bilaamatay madaxdeedu noo horseeday aynu ka faa'iideyno aynu dalka nadiifisano saas horumar lagu gaaraya. bismillaahir rahmaanir rahiim halkan ay joognaa waxa weeyaan degmada Ibrahim Koobur gaar ahaan xaafadda Jigjigeer qaybta waxa weeyaan kaalintayna gaafareer dabadeeda kaalintayna taagaaga farag dhinaceeda waqooyi weeyaan halka waxa ka shaqeeyay ururada haweenka bulshada daladaha degmada Ibrahim Koobur iyo iskuulka 18 May yaryarkii iyo dhalinyaradii hablihiiba waa dhammaantood saaka tacabka ka shaqeeyay waka xooggoodii waa wadiga arkaya waxqabadkoodii waa arkaysaan waxaan u mahadnaqayaa maamulka iskuulka 18 May caruurta ilaahay cilmiga iyo aqoonta ha u furo waan u ducaynaynaa ilaahay maskaxda ha u furo madaxweynayaasha mustaqbalka ku jira wasiiradii soo socda ku jira insha Allah bilmilah kariim waxa weeyaan ujeedadu yaryarkeen tusana muwaadinimadoodii xooggooda tusayna dhammaan waan wada mahadnaqayaa shaqo wanaagsan baad qabateen halka waxaan uga mahadnaqayaa dalada barwaaqaad baan uga mahadnaqayaa waxaan u mahadnaqayaa